wartis amaba honqor waxa ay ka soo baxdaa lakabka sare ee maqaarka amaba layerka loo yaqaan epidermis. si guud ahaanna ma lahan wax khatar ah, waxaana suuragal ah in ay iskeed isaga baaba'do muddo kadib. honqortu waa wax ka soo taagan maqaarka, waxa ayna leedahay ooga sare oo qarfad ah amaba rough surface, balse kuwa ka soo baxa wejiga waa kuwo fidsan oo aan soo taagnayn, sidoo kalena aanan adkayn amaba jilicsan. dhexda honqorta waxaa ka muuqda dhibic yar oo madow oo u taagan xididada tiftaafayaasha amaba kabilariga. honqortu waxa ay timaadaa marka unugyada maqaarka ay u koraan si ka dhaqso badan sidii caadiga ahayd. marka uu u asiibo infekshanka uu keeno fayruska human papilloma virus, fayruskaasi oo leh noocyo badan oo kala duwan ayaa qaar ka mid ah fayruskan waxa ay keenaan nooc kansar halis ah oo uu ka mid yahay kansarka loo yaqaano cervical cancer oo ku dhaca afka hore ee minka haweenka ama meesha loo yaqaano kafka. sidoo kale noocyada kale qaarkood waxa ay keenaan wartiska amaba honqorta, sida midda ku dhacda maqaarka ee loo yaqaano cutaneous wartis amaba skin wartis, iyo midda kale ee ku dhacda xubnaha taranka ee loo yaqaano genital wartis. iyada oo ay xusid mudan tahay in fayruskan loo yaqaano human papilloma virus uu caadi ahaan ku nool yahay dusha maqaarkeena, waxaana la arkay in dadka qaarkii uu ku keeno honqor halka dadka inta badanna uusan ku keenin, waana sabab aanan weli si fiican loo fahmin. khubarada caafimaadkana ay daraaseen ku wadaan. honqorta waa la isu gudbin karaa, balse ma ahan mid si daran la isu qaadsiiyo. haddii uu qof leh honqor taabto meel maqaarkaaga ka mida oo dilaacsan kuna taabto meeshay honqorta uga taalo, waxaa suurowda inuu kuu gudbiyo. waxaa kale oo suuragal ah in aysan kuu gudbin. sidoo kale haddii ay qayb jirkaaga ka mid ah ku taala, waxaa suuragal ah in qayb kale oo haddana jirkaaga ka mid ah haddii aad ku taabato ay u gudubto. dhammaanteen waa la kulannaa fayruska keena honqorta ee human papilloma virus si isxigxigta, balse dhammaanteen ma qaadno honqorta. ilmaha yar iyo dadka qaba cudurrada hoos u dhiga difaaca jirka ayaase aad ugu nugul in uu ku keeno honqor. sidoo kale sababo aan caddayn aawadood waxaa la arkay dadka ka shaqeeya shaqooyin gooni ah inay cudurkan u nugul yihiin, sida dadka ka shaqeeya meelaha hilibka lagu iibiyo iyo malayga. honqorta maqaarka ku dhacdaahi waxaa loo qaybiyaa ilaa iyo 3 qayb. qaybta ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa common type, waxa ay ka soo baxdaa badana gacmaha, balse meel kasta oo jirka ka mid ah ayay kasoo bixi kartaa. marka ay ka soo baxaan cidiyaha hoostooda iyo wareegooda waa ay adag tahay in la daaweeyo. midda labaadi waxa ay tahay plantar type, waxa ay ka soo baxdaa keliya cagaha. waxaa jira mar ay koox u soo baxaan, markaasi waxaa loo yaqaanaa mosaic wartis. nooca u dambeeya waxaa loo yaqaanaa flight type, sida magaca ka muuqato waa mid fidsan. waxa ay ka soo baxdaa wejiga iyo gacmaha, balse ma badna. haddiise ay soo baxayaan waxay u soo baxaan qaab koox ah. haddaba sidee loo daaweeyaa haddii qofku uu leeyahay honqor? sida aan horey usoo sheegnay, honqortu ma lahan inta badan khatar oo qofku kuma qasbano in haddii honqoru ka soo baxdo uu si degdega daaweyn u raadsado. sida cilmi baarisyo badan ay tilmaamayaanna, kalabar honqorta waxa ay baaba'daa muddo sanad ah markii ay kaa soo baxday, halka 3 meelood 2 meelna ay baaba'do muddo 2 sano gudahood ah. sidaa daraaddeed ayay khubaradu ku taliyeen in haddii honqor cusub kaa soo baxdo aad muddo sugto, balse waxaa jirto iyana in khubarada qayb ka mid ah ay ku taliyeen in haddii honqori kaa soo baxdo aad si degdega u raadsato daaweyn. sababtana waxa ay ku sheegeen si loo yareeyo faafidda uu fayruska ku faafi karo nudayaasha ama tissueska kale ee ku hareeraysan honqortii kaa soo baxday. inaga oo taa tixgelinayna, haddii uu qofku garwaaqsado in uu raadsado daaweyn, waa inuu booqdaa dhakhtarka maqaarka oo qaabilsan daaweynta honqorta. haddii aad dhakhtarkaaga u tagto, waxa uu kula wadaagi doonaa qaabab fara badan oo ay suuragal tahay in loo daaweeyo honqorta. qaababkaas waxaa ka mid ah in la isticmaalo maadada salicylic acid oo ah main ingredientiga ama waxa ugu weyn ee ka samaysan tahay daawada aadka loo isticmaalo ee aspirinka. maadadan salicylic acidka loo yaqaano waxa ay u samaysan tahay marka honqorta loo isticmaalayo qaab topical ah amaba kareem ahaan, waxaana loogu talagalay in la mariyo meesha ay honqorta ka soo baxday. waxayna ku marsanaanaysaa muddo 10 ilaa iyo 15 daqiiqo ah. waxaadna marinaysaa maalinkii 1 ilaa 2 jeer adiga oo wadaayo muddo 12 isbuuc ah. haddii ay honqortu ka jawaabi weyso daaweynta standardka ah oo ay ka mid tahay isticmaalka salicylic acidka iyo daaweynta kale oo qaarkeed aanan dalka laga helin sida cryotherapy
chemotherapy oo ah in qabow iyada oo la adeegsanayo honqorta lagu gubo qabowgaasi oo marka qaarkood gaara wax ka badan -321 Fahrenheit. waxaa kale oo suuragala isticmaalka daawooyin aan dalkeena hadda laga helin oo loo yaqaan chemotherapy kuwaasi oo lagu daaweeyo kansarka, balse qayb iyaga ka mid ah oo u diyaarsan qaab topical ah ayaa loo adeegsadaa in lagu daaweeyo honqorta oo la mariyo. daawooyinkaas waxaa ka mid ah daawada loo yaqaano fluorouracil oo u diyaarsan qaab kareem camal ah looguna talagalay in la mariyo honqorta dusheeda. sidoo kaleeto daawada loo yaqaano pliomycin oo ah cirbad ayaa ay dhaqaatiirtu ku duraan honqorta, balse dhammaantood ma ka ahan dalkeena kuwo available ah ama la heli karo. waxaana intaasi usii dheer inay leeyihiin side effects ama dhibaatooyin caafimaad darri, islamar ahaantaana aysan caddayn in ay waxtar waafiya u leeyihiin daaweynta honqorta. saas daraaddeedna laguma taliyo isticmaalkooda in laga quusto daaweynta kale mooyaane. ugu dambeynna waxaa suuragal ah in dhakhtarkaaga uu kula wadaago inaad u baahan tahay in honqorta la jaro iyada oo la adeegsanayo local anesthesia amaba meesha ay ku taalo honqorta loo samaynayo kabaabiyeen. dhakhtarku waxa uu samayn karaa in uu xoqo kadibna uu jaro meeshii ay ka soo baxday.